hooyo garaado Qaasim Baxar waxa ay ku nooshahay xaafadda Waabari ee magaalada Xaraale. Waa hooyo dhibaataysan, waxay ila daalaa dhacaysaa korinta 10 carruur ah oo wiilkii curad ku ahaa reerka 7 bilood xabsi ku jiro. Hooyadan ayaa noo sheegtay dadaalo badan oo ay sameysay in ilaa hadda aan loo sheegin wiilkeeda oo Boosaaso ku xiran sababta uu xiran yahay. Hooyo garaado Qaasim Baxar ayaa codsatay in wiilkeeda oo Boosaaso ku xiran garab laga siiyo siideyntiisa. sidoo kalena walaalaha muslimiinta ay jecel in ay sadaqada la baxaan inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan ka codsatay in carruurta ay u ciidsiiyaan maadaama uu xiran yahay qofkii garabka ka siin lahaa farxadda carruurtan yaryarka ah. Maaliyadan ahay oo garaado Qaasim Baxar la yiraaho waxaan ku noolahay magaalada Xiraale. ciyaalkaas maatada ay ag fadhiyo aan ku haastaa wiilkii xugmada ay ahaa ilmahaas ii korinay budleenaas iiga xiran yahay bishaan kula 7 wax lagu haastana alaana liima soo sheegin aabaheena waa ku agbaaba'san yahay waxaan ku codsana dawladda sharafta leh budleen wiilkaas xugmada ii ahaa oo ilmahaas ii korinay in la ii soo deeyo waxa kale aan ku codsana dawladda Soomaaliyeed dhammaan ciyaalkaas yaryarka oo afarta oo kuriska iyo inta kale magaalada ku jirta waxay ka kooban yihiin 10 ciyaal 6 gabar iyo 4 wiil oo wiilkaas xiran oo budleen ku xiran as u weyn yahay oo xugma ii ahay dawladda Soomaaliyeed waxaan ku codsana oo budleen oo sharafta la wiilkaas in la ii soo deeyo dawladda dhammaan waxaan ku codsana Soomaaliyeed ilmahaas iidooda meel iima saarno nolosha aan ku noolnahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala ahay nolol as og yahay waa ciyaalkaasna iidooda meel iima saarno Ilaahay subhanahu wa ta'ala ahay nolol as nagu nooleystaan ku noolnahay waxaan ku noolnahay magaalada Xiraale waxaan ku noolnahay Galmudug dawladda sharafta leh budleen wiilkaas aan ku codsana in la ii soo deeyo waxay ku haysatana wali aan la ii soo dhigin. Hooyadan oo aan wax ka weydiiyay sida ay u dabartaan nolosha qoyskan ayaa ii sheegtay in ay ku nool yihiin waxyaabo yaryar oo ay dadka magaalada ka helaan. Hadda bil hooy meel ka helaan ma lehe kolbo hadda meesha aan ku noolnahay oo magaalada Xiraale walaalka aan la noolnahay kuma xumino waxay noo heli karaan waa nasiyaan. Xuseen Cali Xuseen warbaahinta qaranka degmada Xiraale.